caawa waxaynu ku bilaabaynaa magaalada Muqdisho halkaasi oo hogaamiyihii ururkii Xisbul Islaam Sheekh Xasan Daahir Aweys oo u xidhan dawladda Soomaaliya uu dhinaca internetka ku weeraray hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur muuqaallo video ah oo internetka la soo galiyay ayuu Xasan Daahir Aweys ku tilmaamay Cabdiraxmaan Cabdishakuur nin kufriyay isagoo barbar dhigay Salman Rushdie waxaana uu Xasan Daahir Aweys ku yiri videogiisaasi safety ilaahay baa galka gashan buuri meeshii Salman Rushdie uu maray in aad marto ayaa rajaynaya waxaanu intaas si raaciyay hadii aadan ambuuri ka soo noqon oo toobada ilaahay waa aqbalaaye arintan ayaa daba waxay tahay waxa dhaliyay hadal uu dhawaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ka jeediyay dalkaasi Jarmalka oo uu la hadlayay jaaliyada Soomaalida ee ku nool dalka Jarmalka oo khudbad u jeediyay waxaana uu khudbadiisii ku yiri dad badan oo culimada kamid ah ayaa buuri marka ay gabdhaha afjigeynayaan ama ay rabaan inay xaqiraan ama ay rabaan buuri inay kaalintooda siyaasadeed u diidaan waxay dhahaan buuri aqalka iyo diinta ay nusqaan ka yihiin xadiisyo wada faals ah oo meel ay ka yimaadeen aysan jirin ay kitaabaha jeebabka kala soo baxan ayuu yiri dhowr qof oo kale hadaba oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa cambaareeyay hadalka Cabdiraxmaan hadaba Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaan goor dhaweed waraystay isagoo jooga Nairobi mas'uuliyadda hanjabaadaasi waxa uu dusha ka saaray dawladda Soomaaliya ugu horreyn waxa weydiiyay bal cabsida uu ilaa hadda qabo runtii Xasan Daahir Aweys wuxuu kamid yahay la socota argagixisada dadka kulaysa Soomaaliya mas'uulna ka ah fikirkaas argagixisada ah saddex jeer hore ayaa asaga iyo kooxdiisa oo ka tirsanaa jiray walina uu ka tirsan yahay ugu soo qaadeen weerar argagixiso saddex jeer Ilaahay iga bixiyay marka runtii dadka waxaan ahay u taagan nafurnimada u sameeyay in xaaladaas adag oo Soomaaliya ay ku dhex shaqeeyaan argagixisada ay ku dhex shaqeeyaan marka fariinta wadaadkaas argagixisada ka timid waxa iga wal badan inay dawladdu ayada tahay cid sponsor gareystay fariintaas oo qalabka u geystay wadaadkaas oo fariinta ka soo duubtay ka bacdina baraha bulshada ku baahisay dad taageerayaasheeda oo la yaqaano ay dad ka tirsan dawladda oo xubno ka ah ay faafiyeen fariintaas marka waxa walaalkii ugu haya ma aha argagixisada Soomaaliya joogtay go'aanka aniga iga qaadatay waan gartay waa dawladdii Soomaaliyeed inay tahay cid ayada dabada uga jirta in argagixisada falkaas sameeyso waan gartay anagu cadeymo dhameystiran uma hayno Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo laakiinse adigu shakhsiyan hogaamiye xisbi waa tahay qaran oo wada jir booliska iyo laamaha nabadgelyada ma la xiriiday sidii ammaankaaga loo sugi lahaa laamaha amniga iyo booliska waa kuwii qaasatan hay'adda nabad sugidda waa tii guriga soo weerartay 2018 December 17 December ku dishay 5 qofood qaadatay hantidii meesha taale anigana igu dhaawacday marka ilaa haddana ammaan dawlad aan ku joogo dalkaas oo lagu joogi karo la isku halay karo oo dadka siyaasiyiinta oo ka soo horjeeda dawladda ama ka ra'yi doon isku halay karaan ma jiraan ammaanka qolada aad ka leedahay ammaan ka raadsan waa qoladii soo weerartay oo isku dayday inay idisho haddana soo isticmaalaysa argagixiso inay iga soo saaraan fadwo aniga ah si la ii qaarajiyo oo la ii dilo marka kuwaas kuwa ammaan uga fadhiyo ma waan gartay Cabdiraxmaan waxa la leeyahay arrinkan iyo hawshan waxa ku bilaabantay kadib markii aad dhaliishay wadaadada qaar oo aad tiri haweenka xaqoodii bay duudsiyeen iyagoo diin ugu soo gabanaya marka ma la oran karayaa adiguna arrimihii siyaasadda iyo arrimihii diinta ayaad isku khaldaysaa siyaasadda iyo diinta anigu maba ii kala saarnaba waa isku kaymid diintana waa siyaasad siyaasaduna waa diin waxa aan ka hadlayna waxa waaye gabdhaha Soomaaliyeed inaan la afjigin oo aan lagu afjiginin fasir qaldan oo xadiista nabiga laga bixiyo markaas waxa la ii saari inaan xadiiskii nabiga diiday halkan waxaan rabaa inaan ka cadeeyo inta maqlaysa sunnada nabiga aniga waxa ay tahay masdarka labaad tashriica xadiiska saxiixana waa rumaysanahay xadiiska lagu been abuurtayna ma aanan beenin waan rumaysanahay xadiis wuxuu nabiga ka sugnaaday inuu yahay waxaan diidanahay waa fasirkiisa oo la leeyahay haweenka waxa tihiin aqligiina iyo diintiina nusqaan ah oo la rabo in lagu afjigo oo looga saaro kaalinta ay ku leeyihiin bulshada iyo siyaasadda waxa aan diidanahay waa fasirka xadiiska waxaana kaga cuurdaaranaya qof walba si qalad fariintaas u fahantay laakiin anigu ma diidani xadiiska sugnaashiisana ma diidani ninkii raba dhiigayga inuu banaysto oo aniga ila dirana qaabo badan oo ila dirira joogta laakiin Soomaaliya waa ka daashay dad la gaalaysiyo dhiigiisa la banaysiyo la dilo Soomaaliya way ka daashay haddaba iyadoo aynu ku jirno arrinkaasi ayaa waxa stuudiyaha igula sugan wariyaha BBC da Mawlid Xaaji Cabdi
mawlid waanu maqlaynay cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu sameeyay eedeymo badan oo uu jeedinayo dowladda federaalka Soomaaliya dhankii dowladda inagu ilaa hadda maxaynu ka haynaa dowladda Soomaaliya federaalka arrinkan ma ka hadashay cabdiraxmaan ilaahay hadda kamaysan hadda dowladdu wayna isku dayn inaynu weydiino ayna u badhigno eedeynta cabdiraxmaan cabdishakuur ka timid laakiin way ka gaabsadeen inay ka hadlaan waxaan u muuqataa in inta badan arrintaas aan doonay inay ka hadlaan su'aalahan weydiinayna waxa ka mid ahaa marka laga taga taa inay ka jawaabaan sababta qof maxbuusa oo ku jira gacanta dawladda uu awood ugu heli karo sidoo kale in markaa uu ka hadlo arrimaha caynkaas oo kale oo warbaahinta ama social media uu wuxuu doona ka sheegi karo waan gartay mawlid dad badan waxay isweydiinayaan mawlido si adiguba u tibaaxday xasan daahir aweys xadhigiisan waa xadhig nooceeya marar kaloo badan waxaan ka aragnay isagoo ka hadlaya social media sidee buu xidhan yahay xaaladiisa maxaynu inagu war ka haynaa sida xadhigiisa cabdiraxmaan horta markii ugu horreysay maahan oo uu xasan daahir uu ka hadlo uu soo galo live Facebook oo kale soo galo ama uu ka hadlo arrimaha siyaasadda ama diin oo kale ilaa dhowr mar bay dhacday laakiin arrinta la is weydiinaya waxa weeye sidee u suurtageli kartaa waana su'aasha aynu doonayno inaan weydiino dowladda iyo lamaha ammaanka oo aysan inoo suurtagelin inaan helno laakiin waxaynu ognahay waxa weeye xasan daahir aweys inuu ku jiro guri u dhow xarunta madaxtooyada oo sida xabsi guri kale uu yahay 2013 dowladdan hadda jirta dowladda ka horeysay ayaana xabsi gurigaasi gelisay waxa laga soo qaaday markaasi 29 June 2013 ayaa magaalada caadada laga soo waday wafdi odayaal oo ka tirsan odayaal isku hayb yihiin ayaa soo wada magaalada Muqdisho keenay markaasna waxa lagu wareejiyay dowladda ilaa xilliga wixii ka dambeeyana wuxuu ku jiray gacanta dowladda laakiin waxa jirtay markuu al-shabaabka gurigu jooga ma xabsi caadi ah gurigu jooga waxa BBC fahamsan tahay gurigaas inay ilaala ka hayaan ciidamo ka tirsan nabadgelyada Soomaaliya ma naqaan ciidankaasi si toosan cid ka amar qaataan laakiin halkaas ay joogan laakiin waxa kale oo nagu maqaala oo BBC ay fahamsan tahay in uu xitaa uu la nool yahay qoyskiisa familkiisa oo kale ayna adag tahay in qof kasta u tagi karo xagga BBC da markaynu eegno in marka dawladda la xiriireen Soomaaliya federaalka mawlid dawladda federaalka Soomaaliya ma diiday in arrimahan ka hadasho ma waqti u waayay sidee wax u dhaceen way ka gaabsadeen ilaa dhowr kala xarumood oo kala duwan iyo mas'uuliyiin kala duwan ayaynu isku daynay BBC waliba document ahaan aan u hayno xiriirkan la sameynay way ka gaabsadeen in arrintaas aad uga hadlaan waxay u muuqataa arrintan inay tahay arrin markii hore dawladda iyo dadka fikirka ah ay Cabdiraxmaan doonayeen inay ku weeraraan oo siyaasadiisii iyo isaga ay ku weeraraan haddana waxay u muuqataa Cabdiraxmaan qudhiisa isna inuu ka faa'iideysanayo oo dhinaca siyaasadda iyo mucaaradnimada dawladda uga soo horjeedo inuu uga soo horjeedo ayaa moodaa ama uu isticmaalayo oo kale ayaa moodaa waan gartay mawlid xaaji cabdi aad baad mahadsantay waan gartay wararka kale caawa idin hayna waxa kamid ah xeebaha Puntland habeen